بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادة حلقة عصبية إن شاء الله BCY TV. إن شاء الله بإذن الله الكريم حلقة عصب وحين نسكو حسوسين دونا آيات قرآن إلهي سبحانه وتعالى وكجهد ليو وحا أي الدنيا ضتهاي لما أنتم بنا لو بهيين نس حسوسينه وأيضا معركتي إلا وين ما دام الدنيا أي تهاي ميل سفر لويه هاي. إلهي سبحانه وتعالى آيات داسي قرآن كا وصور الموضوع يعني صور قروح بدن أو كلير وماركتي إن قصينا يو الدنيا وحي تهاي وحي كترتا في سورة ميلا بدن القرآن كم إذا صور كا الدنيا اللي نقصينا يو وحكم إذا مركزي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل الغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إلهي سبحانه وتعالى آيات القرآن كأوكو صور الله بدأ آيات القرآن كا وحاو مدنا كل شيء يا هدفك يا وحا آيتهاي إن ماركتاي إنت الدنيا اللي تشوفه إن لوها الجمو وحن كلا إيمان عالم كدك تشوفه أو لم أيوها الجميان oo maxaan ku idhaahdayay yani adduunyada korkeeda aayadda hore ayaa sawir aad u qurux badan inaga siinaysa. ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu markaasi aayaddaasi hore uu inoogu tilmaamay in ay adduunyadu tahay lacibku waxa weeyaan waa maxay? waa waxa ay carruurta yaryari ay maaragtay ku waqtiga ku qaataan oo maaragtay ay ku qaataan waqtiga. waxyaabaha carruurta yaryar ay waqtiga ku qaataan waxa weeye lacib baa lagu tilmaamo. yani ilmihii energy baa ka buuxa waynu ognahay, tamar baa ku jirta. tamarta waxyaabaha uu ku saaro waxa weeye waa lacib, ciyaar weeyaan. maanta caalamku diwaabu isbedelay oo ciyaartii waxa loo bedelay geymankan lagu ciyaarayo internetka ayaa loo bedelay. laakiin dee maraaxil kala duwan bay soo martay ciyaaruhu oo ay dadku maaragtay ay ciyaari jireen ilaa maanta ay u gudubtay maaragtay in games la ciyaaro oo waxyaabahan kombiyuutarada lagu ciyaaro iyo ma garanaysaa iPadada iyo telefoonada smartphone-yada oo dhan lagu ciyaaro. waxyaabahaasoo dhan oo runtii waa lacib iyo wixii ka horreysay la ciyaari jiray, hadday tahay waxyaabihii lagu ciyaari jiray wixii la odhan jiray shaxda iyo ciyaarihii caddacaddada, wax alla wixii la ciyaari jiray oo dhan cayaarun bay ahaayeen. mar walba tadawurun iyo ma garanaysaa wax ku kordhinun bay dadku ay samaynayeen. laakiin aayaddu waxay sawiraysaa xilligay doontaba ha noqoto, ama maanta ha noqoto, ama waagii hore ay dunidu bilaabantay ha noqoto, macnaha waa lacib. adduunyada nolosheedu waa lacib iyo lahwi. lahwiguna waxa weeyaan waa waxyaabaha
dadka waaweyn ay maaragtay waqtiga ku bixiyaan dadka waaweyn ay waqtigooda ku bixiyaan baa lahwi weeyaan fadhi ku dirir ha noqoto kubada ha noqoto riwaayada ha noqoto aflaam ha noqoto maxaan ku idhahdaa wax kasta oo la daawado waxa weeyaan lahwi iyo wax kasta oo waqtiga markaasi lagu bixiyo oo markaasi lagaga jeesto acmaashii xaqiiqiga ahayd ee aadamaha loo abuurtay iclamu annama alxayaata addunya ogaada baa layna leeyahay xayaatada ama noloshan dunya liidata ama hoosaysa lacibun waa waxaas carruurtu ay ku maaweelooto walahwun iyo waxa dadyowga kale ay ku magaranaysaa waqtiga isku dhaafiyaan fadhi ku dirir iyo waxay doontaba ha noqotee watafaakhurun isufaan baynakum dhexdiinna ah oo anaa kaa magaranaysaa maal badan iyo anaa kaa magaranaysaayay kaa ubad yani faan weeyaan baynakum anaa kaa awood badan anaa kaa qurux badan anaa kaa maal badan anigaa kaa cilmi badan waa waxaa un lagu faanayo faankaa weeyaan iyo takaathur kala badsi oo la kala boobayo wixii oo qof waliba uu maaragtay isku dayayo in uu wixii loo abuuray kaga mashquulo wax magaranaysaa yani aan faa'iidooyin fara badan oo magaranaysaa aanay ugu jirin watakaathurun fi lamwaali walawlaad iyo badsashada maalka oo qof dee bini aadamahoo ka dhargay maalka lama arag qof waliba waxa weeyaan maalkii unbuu maaragtay habeen iyo maalin uu jamcinayaa raadinaya oo business buu gelayaa halkaa maxaa ku jira faa'iido kamathali qayf waxa uu la mid yahay sida qaydka oo kale qaydku waxa weeyaan waa roobka xilliga abaarta aadda ah ee maaragtay imika waynu u baahannahay roob ilaahay rooba baa inoo shubo khayr qaba dhammaanba dadka muslimiinta oo dhan meel ay dunida joogaan iyo dadyowga kaleba iyagana allah u shubo waayo dee nolosha bini aadamka oo dhan waxa weye way isku wada xidhan tahay oo waa taa isku wada xidhan qolo walba markaa way u baahan tahay roobka bini aadamka oo qura maaha xayawaanaad iyo makhluuqaad kale oo fara badan oo maaragtay u baahan ayaa meel walba jooga oo xataa waa kii maaragtay nabiyullaahi daa'uud baan filayaa inuu ahaa ayaa maaragtay mar wuxuu u baxay roob doon garanaysa sidaynu maanta inaguba u akhrisano roob doonta oo kale dabadeedna wuxuu arkay maxaan ku idhahdaa dadkiibuu haddana dib u celiyey baa la yidhaahdaa dadkiibuu maaragtay dib u celiyey oo maaragtay uu maaragtay yidhi iska laabta roob doonta u soo baxay kadibna wuxuu yidhi dad kale aynagaga filaaday macnaha waxa aynagaga filaaday dadkii waxa aynagaga filaaday makhluuq kale yani waxaa la sheegaa markaa inay quraanjo iyaduna ilaahay roob weydiisanaysaa ay jirtay markaasi waa ka gudbaynaa walawlaad iyo ubadka kamathali qayfi waa sida markaasi qayf waa roobka xilliga loo baahan yahay ma garanaysaa roobkaasi weeyaan acjaba alkufaara kufaarku waa beeralayda acjaba alkufaara macnayaal badan bay leedahay kufaar luqadda carabiga laakiin halkan waxay ugu jirtaa waxa weeyaan waa dadka beeralayda weeyaan acjaba wuu aad u yani cajab geliyey u la yaab geliyey siduu roobkaas intuu u da'ay maaragtay uu maaragtay u saameeyey beerihii iyo dhulkii uu falanayay nabaatuhu aadna uu maaragtay yaab geliyey beerwalihii sida midhaha uga soo baxeen uma yahiiju dabadeedna kadib wuxuu bilaabmayaa macnaha inuu qallalo oo maaragtay ayaa bilaabmaysa uu markaasi soo xumaado oo maaragtay uu qaadho fataraahu musfara waxaad arkaysaa markaasi isaga oo markaasi jaalle noqonaya caleentii akhdarka ahayd ee quruxda badnayd ay jaalle noqonayso uma yakuunu xudaama marka wixii ka dambeeyana dumaa ama burbur buu noqonaya ama caws ha noqoto ama wax kaleba ha noqotee wa fi laakhirati cadaabun shadiid aakhirana waxa ah cadaab shadiid ah ayaa isagana ah wa makfiratun min allaahi waxaa kale oo ah cadaabkaa shadiidka ah iyo makfiro iyadana oo maaragtay cadaabka shadiidka ay leeyihiin dadka mustaxiqiinta ah ilaahay nagama dhigin wa makfiratun min allaahi wa ridwaana iyo
dembi dhaaf ilaahay oo ay leeyihiin dadka iyagana mustaxiqiinta ah maaragtay ilaahay uu raallida ka noqdo ilaahay haynagu daro inagiyo waalidiinteenna iyo durriyaddeennabe wama alxayaatu dunyaa ilaa mataacu lquruur mana aha xayaatadan adduunku mataacu lquruur mooyaane wax uun yani ku meel gaara oo yar oo maaragtay markiiba laga tegayo oo aan faa'iido ku sii jirin maxaa markaa ilaahay ina siinaya maadaama sawirkaa noocaasa laynaga siiyey adduunyada waxaa layna siinayaa haddana maxaan ku dhahdaa maxaynu yeellaa ilaahayow aayadda labaad ayaa ilaahay subxana watacaala inoogu sheegayaa wuxuuna leeyahay saabiquu ilaa makfiratin min rabbikum waxaad u tartantaan dembi dhaaf ilaahay wa jannatin iyo janno carduhaa balladhkeedu ka cardi samaa'i walard uu la eg yahay samaawaadka iyo dhulalka oo la isbarbar dhigay uu la eg yahay uciddat oo loo diyaariyey liladiina aamanuu dadka iimaanka laga helay billaahi iimaanka ilaahay laga helay wa rusulihi iyo rusushiisa iyo waxyigii ay sideen laga helay dhalika fadlullaahi taasina waa fadliga ilaahay mu'miniin haynaga dhigo inagiyo durriyaddeenaba iyo intaynu nahay durriyaddooda intii dhimatayna ilaahay naxariistii jannaa ka waraabiyo dhalika fadlullaahi arrintaasi waa fadliga ilaahay yu'tiihi man yashaa wuxuuna siiyaa ciddii uu doono wallaahu dulfadli alcadiim ilaahayna waa mid u saaxiiba fadli ama fadlisiin dheeraada u saaxiiba ilaahay subxaanahu watacaala waxaa kale oo maaragtay meelo kale ilaahay subxaana watacaala uu ku tilmaamay fi suurati aali cimraan oo kale waxa weeyaan zuyina linnaasi xubu shahwaati min annisaa'i walbaniina walqanaatiiri almuqantara min aldahabi walfidati walkhayli almusawama waa waxyaabaha bilicda iyo ma garanaysaa dadku ay aad iyo aad u raadiyaan maaragtay caalamka kan aad loo raadiyo weeyaan waxyaabahaasi ayaa ilaahay subxana watacaala meelo badan inoogu tilmaamay laakiin ujeeddadeennu waxa weeyaan in aan waxaasi maadaama yani waxaynu aragnaa xayawaanka oo kale marka la rabo in xilliga ciid aladxaha oo kale in la soo iibsado xayawaano oo maaragtay ari geel ma garanaysaa lasoo iibsado oo markaasi intaa ay ciidka ka hadhay 2 maalmood 3 maalmood ka hor oo kale loo sii dhigo raashin iyo biyo iyo ma garanaysaa wax loo sii dhigo marka waxaanoo qurux taalla dahab iyo fiddo iyo lacag iyo fardo iyo ancaam nimcooleyda xoolaha iyo beeraha waxaas oo dhami waa uu neefkaa la qalayo oo kale cawskaa loo sii dhigay kala duwan marka waxaa loo baahan yahay ghaayada weyn ee loo tartamaya inaysan noqonin tan ee ay noqoto maxay aynu u tartamayna ilaahayna hayna wada waafajiyo inagu ma awoodi karano hanuunka laakiin ilaahay baa hanuun leh isagu haynagu hanuuniyo subxaanahu watacaala in uu maaragtay ina waafajiyo sidii aynu ugu shaqaysan lahayn noloshaasi saxda ah saabiqu ilaahay leeyahay ha loo tartamo ilaa makfiratin dembi dhaafka ha loo tartamo uu leeyahay allahuma اغfir lana dunuubana waliwaalidayna walilmu'miniina walilmu'minaat walilmuslimiina walilmuslimaat minhum alaxyaaa walamwaat وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين intaas baan ku soo gabagabaynaynaa inta yar ee iska xasuusinta ah oo aynu ugu talagalnay maadaama lagu jiro bishii barakaysteeda ramadaanka in maaragtay dadku ay xasuustaan sawirkaa quruxda badan ee ilaahay maadaama dadka muslimiinta ay wax xasuusiyaan sawirkaa quruxda badan ee ilaahay subxaana watacaala uu inaga tusay noloshan adduunyada ee aynu isku dawakhinay ee qaarkeen ay xataa isku dilayaan oo ay maaragtay dhiig u gelayaan oo maaragtay ay qabaa'ilkii xataa isu laynayaan ilaahay subxaana watacaala nabadgelyaha dhex dhigo dhammaanba ummadda muslimiinta meel walbay dunida joogaan waxay isku dilayaanna waa waxaasi loogu talagalay aynu maaragtay yani aayaddu ay ku sifaynayso inay un tahay wax yar oo ku meel gaadha oo aan macno sii ridan lahayn oo lacibka carruurta lagu sheegay markii ugu horreysay iyo lahwiga lagu sheegayna ay tahay keliya waxa weeyaan wax
يعني caruurtuna ay energy-ga ku bixiyaan marka dambena iyagoo gaajoonaya ay guryahoodii kusoo noqdaan markii ay magaranaysa ay kusoo daalaan oo kusoo dawaqaan waa inay wax faa'iidaan markaasi aysan lahayn marka waxaynu u baahannahay in aynu ilaahay subxaanahu watacaala maaragtay waxa uu inoo sheegayo inaynu u tartano waxaan kusoo gabagabaynaya insha allah biidni illaahi kariim arrinta yaroo xasuusin ah insha allah waxaan xasuustaa video waddankan dagaalada uu ka dhacayeen youtube-ka la soo geliyey oo maaragtay qof dhimanaya oo dadkii maaragtay ay ku dhaceen waxyaabihii la isku tuurayey waddanka Syria oo kale ay ku dhaceen ba maaragtay youtube-ka aan ka arkay waa nin markaa naftu ka sii baxayso oo madfac ku dhacay weeyaan oo waxaas la isku tuurayo ilaahay dadka colaadda ka ma garanaysaa nabad ha ugu bedelo dhammaanba dadka muslimiinta meesha ay joogaan iyo dhammaanba caalamka oo dhan nabadda un baa dan u ah adduunka oo dhanba iyo makhluuq oo dhanba nabadda ayaa dan u ah sidaa daraaddeed adduunka oo dhanna ilaahay subxana watacaala nabad baynu u weydiinaynaa gaar ahaan inta waxaynu usii weydiinaynaa dadka muslimiinta ah gaar ahaan deriskeenna iyo ma garanaysaa dadka soomaalida ah iyo ma garanaysaa iyo dadka muslimiinta ahba intaba waynu u weydiinaynaa ilaahay subxana watacaala nabadgelyada isaga ayaa bixiya waana waxyaabihii uu quraysh maaragtay ilaahay subxana watacaala ugu manna sheeganayey oo maaragtay liilaafi quraysh ilaafihim rixlata ashitaa'i wassayf falyacbuduu rabba hada albayt alladii adcamahum min juucin markii uu yani ilaahay u manna sheegtay oo uu tilmaamay cidda quudisa makhluuq oo dhanna cidda quudisa waa ilaahay subxaana watacaala cidda maaragtay wuxuu kale ugu manna sheegtay wa aamanahum yani min khawf cabsidii iyo colaadii iyo dhibaatadii ay ku jiri jireenna amni baa laga siiyey waa security of food iyo security of ma garanaysaa life noloshii oo maaragtay heshay nabadgelyo iyo noloshii oo heshay maaragtay cunto intaba waxa weeyaan waxa bini aadamku u baahan yahay oo nolosha tan looga baahan yahay laakiin waxyaabaha noocaasa waxaynu u baahannahay inay noqoto wax aynu maaragtay uga sii sahay qaadano oo sahaydii runta ahayd loo sii qaato tan aakhiro hada wabillahi tawfiiq wasala allahuma cala nabiyina muxamed وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين